kabacdi habeenkii dambana taleefankeedan ugu diraan kuwataas ma jirtaa erayo aad samaysay oo fanaan aad u dhiibtay cid qaaday heesahaaga horta way jiraan fanaan dhowr baan u dhiibay laakiin ilaa hadda fanaan soo saaray ma jiro heestan ku jirtaa marka tan uma dhiibin tan way hees dheer aduu fanaan waa tusay marka aad bay u dheer tahay been marka in la jarjaro bay u baahan tahay sax waa hees macnaa waxa leedahay erayo dhumuclo oo adag way leedahay dadka qaybta fanaanta qaybta qayba waxaan taan u dhiiban ku leeyahay heestan ka warramo erayada qayb ku jir dhan bay fahmi waayeen sababtoo dadka Soomaalida dhaqanka iyo waxa weeye hidaha geelii baa kamida roobkii baa kamida dhirtii baa kamida biyihii baa kamida deegaanka kamida marka qof dumar amaanaysid awaantii horena baad wax kasta waxa laga hada raacay dhaqankii meeshii marjina mala maraa mogta hadaa ka leexatay marka waxa weeye dhaqankii wax ka leexatay mogta marka gabadha ku amaantid geel ku amaantid ama gamaan ku amaantid ama waxa weeye roobkii iyo daruurihii iyo cirkii xidigihii ku amaantid waxyaalaha ugu quruxda laakiin hadii riiko amaana ka war ama lo oo kale kuma amaan noqoso waxay u baahan tahay qof af Soomaaliga macnaheedu si dheer u soo qota dheer yaqaan oo dhaqankii yaqaan Soomaaliga yaqaan hadda fiiri tusaalahaan heesaha wax ku jira guus mataqaana eray guus waa dadka reemiga way yaqaan guus oo kale waxa lahaa waarti baa lahaa waarti qaalintu dhashay qaalin baa ku oratay sax waartiga marka qoftiga islaanta carweelo ay oda biiqla saarayo intuu ka waqti intii la raray ku soconayo hadhow marka urtka daatay soo daaqaya marka guus baa dhahaa sax marka dad qaalan baa ku oratay marka dadkii waxa yara maarta waxa ku adkaatay erayada fanaan u dhiiwajin oo hadii aan heesan tusay way dheer inaan soo yareeyo oo wada wali aan way muuqantay oo wali soo yareyn soo gaayamin aduu dhowr hees ka dhibay dhahan laakiin aniga hooseena ka dhigay markii hees hal wax rabeen ka saar hal hees oo waxa weeye qaamteeda wata marka erayada marka fanaanta waxaan ku yaabay erayada qayb baa ku adkaanaya ma yaqaanaan ba waxa abwaan magaalo u batanta tag wax soo baxaya abwaan magaalo way jiraan dad badan oo dhaqankii yaqaan oo maaragtay dad aad maaragtay dhaqanka u yaqaan oo abwaan fanaaniin Soomaaliyeed inkastoo fanaaniintii damo dhalinyarada ahayd inta badan ay dad iska miyi aysan arag haday rabaan oo maadaama dad dhalinyaro yihiin marka waa rajaynayaa in laga faa'iideysto oo maaragtay runtii aan dhigi karo maadaama ay heestu ay ku jirto dhaqankeena Soomaaliyeed miyigeennii xoolaha ugu qaalisanaa marka waa rajaynayaa inaad maaragtay uu ka faa'iideysan doono fanaan oo nasiib leh uu heli doono heestan aad baad u mahadsan tahay wali waxaan ku sii soconaynaa barnaamijkeennii waan aragnay heestii cusubkan waynu aragnay oo runtii qiimaheedii wadad marka maxaa inoo ku xigi doonaa waxa jirta هذا كور واحد علي هذه قصة كبعدي وقت كان أساسا كبعدي واحد أنا ميل كلبير بادية هذا شوجة ميل بادية صعنية وميل بادية سلوكية كلي مخرب أذن نقطي أنا نسوي أسمع واحد كوري حاجات شوكة سويت البوسان هذه بوسادة ها قبل صلاة ما سنيو مصلى ما نيو حسنا ساعتين نيو بحشي وودي مويني كودي nin مسير بدن بعت أنا ومسير بدنا يا باش هذا gabadhi laba mushkil mashquul ya waa صح ma gabadha marka kula boosaasanahay marka niyo waxay waxa samaysaa baash walaaltimo inuu ku daaba isla wada weynee marka labada masayr badan adna waa masayr badan laba qof kulqul baan ahay naga aan kala wareegsano marka meel مخرجنا قرحنا ويدعى ميل بادية مرية وحاس لها كلابير بأسس سعودي صح وحاس تكبر يقول إسلام شيء يقول ميل بادية بعد إسلام بقيت شيء صح مركا أول ونديرين يوحاس لها كلابير أتجاد أنت قرح رواي بهذا يسقوس الحين مركا واحد عادي إن هيس اسمه مشغولي هيس بقى مركي جواد ساستري هيس بقى كسمي ماشي وأنا سفر الصعود كاين wadadii maraya baa hees sameeyay heestu marka waa hees aan qayb isku canaanayo qayb iyada ku canaanayo qayb jacaylka laftiisa aan waxa weeye aan ku odrasiyo noolayaasha ilaahay sameeyo qaybaha ugu faa'iido badan baa heestan baan ku jiraa
waxa shinida horta ayaanka shinida liyaado waa nooleyaasha ugu faa'iido badan malabka sameeya ku jira qaybaha ugu fiican ku jira dawooyinka loo isticmaalaa waxyaalo badan loo isticmaalaa marka tusaale ahaan shinidu anu waxaan ku daraa noolaha ugu nasiibka daran markii intay wax malab ay sameynaysaa hadhow baa loo imaanaya waa la jabsanayaa way ka guuraysaa noolaha ugu nasiibka badan anigu waa wax hadda aniga kolay anigu aan ku qiimeeyey marka waxa ay shinidu marka waxaas badanaa waxaas waqtiga jilaalka bay xayga urursataa way samaysaa markii agto oo malabkii wixii samayso iyadoo hawsheeda wadaysan baa mid aan kala imaanay faas soo qaadanaya bas waa jabsanaya mid qoonaya bas iyadoo ka tagay qaybna dab ku shidaya waa gubanaya marka shinidaas oo kale ayaan darada ayaan ka daran baa iska soo qaaday oo yaani wixii aan waqtiga ku dhuminayay oo leeyniyo oday baa tahay niyo baaki gal صح qof inta jacayl soo jiray walaalnimo صح marka waxa ay shinidu xayga guraysiyo wax ubax xambaartay ku xiriirsan geedaha markii ay xorooday meedii xirmaysay shinidu xayga guraysiyo wax ubax xiriirsan ku xiriirsan geedaha markii ay xorooday xabagtay samaysay meedii xirmaysay ayadoon ka xirkanan xolad iyo dabshidan ay gudmaan lagu xasuuqa aniguna xaraartaas muddan ku xanimnaayo jacayl xididayasha xabsi xandaabi gariyo xabsiga yareero markii ay xorooday xabagtay samaysay meedii xirmaysay ayadoon ka xirkanan xolad iyo dabshidan ay gudmaan lagu xasuuqa aniguna xaraartaas muddan ku xanimnaayo jacayl xididayasha xigayasho xamus iyo ragaad iyo xandaabi galiy xagaldaaca caashaqa xinjir dhiig filsiya xabad waa ka kulul yahay adiga xoodo xabsigaad igelisaa dadku igu xantaan inta aan xabaal gelin lagu xaalin dhoobada xiddo hayga dheeraan xalay saama leelkii xanaftii jacaylka xaajiinaan ka qaado xarbi aan la toosiyo xafaf igu abuurtay waxaan xasuustaa xiska aan ka soo helay adigoo xijaab xiran sidaad xujay tahay dawaafaya xaramkoo midab xural cayniyo ama xabag cadaadeed sida genyaxiisoo xakamaha la suro iyo baliyada xareed iyo dhooddoxays la joogta sida loogu xiisaan anna ku xasuustaa xagaldaaca caashaqa xinjir dhiig filistiya xabad waa ka kulul yahay adiga ay xoodo xabsigaad igelisaa dadku igu xantaano inta aan xabaal gelin lagu xaalin dhoobada xiddo hayga dheeraan markii qaybtan wax ku leeyahay marka aniga waxay ugu eedeen soma inaan masir badnahay oo waxa weeye aan iyada karkabadeeyo oo marka waxaan idhi markii aad xariir iyo xaarto hoos baan yaa markii aad xariir iyo xaarto hoos baan xanan kaaga leexdo sida xid dhawaaqo jacaylkan xaqirayo ku xawaalay ciidba xoodaaminaye haddii aan ku xooro iga weyday xuuraan ha iga xiran xuduudkii aniga xanuunkiiyo xaantadu i haysaa boga iyo xubnaha iyo xididada jirkayga ku xayndaaban tahay sida dhiigga ku xayndaabantahay dhiiggaad xulaysaa xagaldaaca caashaqa xinjir dhiig filistiya xabad waa ka kulyahay adiga ay xoodaaminaye yaa xidda hayga dheeraan waxaad ku cabirtay guud ahaan maadaama ahaydeen dad jacayl idinka dhexeeyo isku fiican oo meel fiican jacaylkooda u barayay in maadaama labadiinuba aad markaas qofba qof ka masayrayay macantaasna waxay ka mid tahay jacaylka iyo dadka jacaylka isku qaba dadka la masayraya sida la sheego inkastoo adugu xagga jacaylka abwaar aad ku tahay oo dee waxa weeye aad cidna ku gaari karin laakiin dadku waxay dhahaan inta badan dadku hadday iska masayraan waa dad isjecel طبعا سو سدا maaha saasaliya waa maqal laakiin waxa ma aqaaniyo hawshaas dadka qaybo si ku odrasan magarat marka anu kale waxaan aaminsanahay laba qof haday mataqaan badana laba xiriir ka dhaxeeyo ay murmaan waxa weeye khilaaf soo dhaxgalo in waxa weeye kale ay isjecel yihiin sababtoo ah khilaafka waxa keenaa laba qof isrin marka hore secretary soo aadiya markaad heestaan oo xoogaa maaragtay khilaafku ka soo dhaxgalay xagga masayrka iyana kala didaan kabacdi markaad heestaan aad u dirtay isbedel ma dhacay may isla markii mid kale ka daba sameeyo waxa la yiraahdaa iyana filan waa la yiraahdaa iyadu waa filan ana waxa filayay inaan waxa weeyde aan xiriiriyano waqtiga qaadano laakiin wax filan waa igu noqotay hawl kala soo baxay sax marka waxa la yiraahdaa heestaan filan waa ayaan leeyahay isla markii ka dib adigu isla yaamihi ka daba sameeyay waxa la heesidu gaaban heesaa kale ka gaaban tahay marka waxa la yiraahdaa filan waa la yiraahdaa
waxaa leedahay haddaan ku luuqayo filan waaga caashaqa mar buu fayl ku gooyaa fakarkugu habuuraa sida faalalowgii hoosu foorartaayo dhulkaad u faartaa anna waxaan fayoobaa intaad ila faqaysay markaad iga fogaataan fagaaraha ka gooyo fiilmeerta ciisaan foorideed dhegaysta fuuraha dhacayo furin baan ku noolahay fuuraha dhacayo furin baan ku noolahay falaaraha jacaylkiyo haygu fiirsan caashaqa falaaraha jacaylkiyo haygu fiirsan caashaqa jacayl igu fogaada igu sii fidaayo jacayl igu fogaada igu sii fidaayo jacayl igu fogaada igu sii fidaayo igu faalaal caashaqu fiicnaan lahayda adoo igu filnaado anna aan ku fiirsado fooraha dhacayo furin baan ku noolay falaaraha jacaylka igu sii fidayo igu fiirsan caashaqa bayaa igu fiirsan caashaqa waa filan waa igu fiirsan caashaqa ugu dambeysay aad iyo aad marka iyada qudheeda hadda laba heesood baan soo aragnay midda filawaaga ha ugu fiirsan caashaqa waa meesha ugu dambeysay meesha ugu dambeysay aad iyo aad marka taas wax jaxa ma jira dib ma lagu soo eegay may haba ka yaab niyo waxa isri maxay raadinaysaa isri meyna sidii social media ka soo jiray markii adigu maxaa micnaayo u samayn lahayd markii xoogaaga yarkaayo masayrka iyo arrimahan xoogaa yara maaragta khilaafka oo inta badanba dadku markay xiriirka leeyihiin ama ha ahaadeen dad maaragta lamaanaa markasta khilaafku iska jiraa waa wax iska dabiiciya oo khilaaf intuu dhaco in laga heshiiyo marka adigu maxaa isleedahay khilaafkan gabadhan intaa heesood baad u qaaday qofkaan wax maqli jiray si walba waa loola hadlay marka si kasto mar waad ammaantay mar waad la hadashay si walba wax waa u tustay maxaa isdhihi lahayd marka ujeedka ugu weyn oo arrintaani maaragtay ay u hirgeli weyday ama u toosi weyday oo maxaa ku sababayn lahayd waxaan ku sababayn lahaa hal sabab baa u raadinaya mid hal sabab kale u raadinaayo horta aniga nin ardayga iska ahaa markaas jaamacad baan dhiganayay guurna reerna waa lahaa reer way deganaa marka tabar kale marka waxa weeye aan reer kale iyo waxaas aan ku marka ku yeegleelo ama aan yani markaas iguma because arday baan ahaa reer way deganaa dhibaato badan ma qabin hase ahaatee qof aan doonayay yahay soo marka iyadu wax istiri horta qofka bilaadanka qalbigiisu mar buu kuu soo jeedaa mar raba kaa xiraya calashaan marka hore oo leedahay heesta ii sameeyo oo inaan jeceshahay maxaan ku ogaanayaa wuu ii soo jeedaa waan filayaa kabacdi waxay istirimdhaa niyow ninkan waxa weeye adna gabar yar wax tahay keligeed nool oo waxa weeye dee nolosheeda raadinaysa isna dee ninkan waa nin lamaan ah markana dee arday weeye waxba marka wax weyn waxba kama bedeli karo saas istiraan filaya jacaylka maxaad ku micnayn lahayd jacaylka wax dhigala niyo hawaalan weeye kowdhe waa waxaan ku maqlayn waa waxaan haddana aan hawade aan marbuu ku ixtiraamayaa qof aad doonaysaba buu kugu wadaya laakiin badanaa dadku siday u badan yihiin qof jeclaa ma helo qof dhab jecel yahay waa ku yirin dadka ma helaan sababtoo ah qays iyo cilmi oo kale waa kuwii isla hoyday inkastoo dee wad ilaahay baa dili laakiin dee waxaa Soomaaliya ku maamada waxtaada dee waxba kole qabriga waxa hooyay ku leeyihiin laakiin dee waa kole waxa waa jacaylku kole waxa ka aaminsanahay horta la hasraacin wariga waa la isadkeeyaa xaalas ma raaciyo hadda israaciid digadu ka dhigayo guud ahaan inta ku jirtay barweynka jacaylka ma jirtaa waxyaalo aad ku fikirtay sida inaad jacaylka iska daysid inaad jacaylka isku taxallujisid oo aad heer ka gaarto horta anigu bahalkaas jacaylka ma taqaanaa waxa weeye horta waan ku sheegay waxaan ka aaminsanay waxa waalan iyo dhagalaayaan waqti mooda qaadan karaan farxad mooda qaybsan karaan yani jacaylku wax muhiim ah haddii aan ku socdo
jacaylku kolay waa anigu kolay waxaan ka aaminsanahay wax aan guul laga gaari karin qofka ilaahay la maago qofka ilaahay la maago maaha qofka ilaahay la maago wuu ku guuleysan waayahay gabagabadii barnaamijka soo gaarnay gabadha fariinta u diraysid iyo dadka isjecel ama lamaanaha fariinta u diraysid والله انتينا اسكو حمانا وحوي وحده كان برك اورس وحين بس برك اسفانتان يا لا صح والله صح هو باب هو شيطان واش عذر بدنيه وسبدلك لا صح برك انت وحوي جالس كده وحوي لو اما ايوه يكرهوا لا كان فايدته والله maxaa u diraysaa marka gabadha fariinta gabadhaad jeceshahay qofkaas oo aan rajaynayo inaad isfahmi doontaan isla markaasna caawa suugaanta iyo heesaha iyo ammaanta iyo si hadday noqoto si walba loola hadlay inaad ula hadashay ayna ku daawan doonto aan rajaynayo inaad isfahmi doontaan maxaad iyada fariin u diri lahaa فرحت واحد اتصلت في الجو فرحت كو اتصلت في الجو صوتها انت كلمه مثلا هذا أفر سنتين صدقني عن بسوتشي دي أنت سكرين مثلا قبليها كتيرة قبليها واحد كتيرة عن أسبوعي كذا أسبوعي كتيرة لكن بدل كذا ما يستوى مدة سنة وقدرة أو وصل كنا وقدرة ما قلت يكرر رئيس الدولة ما قلت وحنا يعني دقف فيها ولي جوان كنا تاني يا جوان كي ولي تاني ما قلت لكن واحد قف هلا قف تشعل قف أتعشى اللي مرة سيدي قف تشعل ده هذه صوتها هذه أول حكمة كده لكن قف أو كلمة هدد طبعا أنا واحد يسوق موت على مكان أنت حكمة تيسا سوق تشعل قف تشعل صوت إذا يكون فايدة بوله waad ay daawadayeen guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkii la kulan bulshada oo aad ka daawataan channelka Suwayska Cayte toddobaadkan barnaamijka waxaan ku furnay Cabdirasaaq Axmed Cali oo loo garan og yahay xareed isla markaasna ka mid ah dhalinyarada hal abuurka leh ee Soomaaliyeed barnaamijku wuxuu noqon doonaa mid toddobaadle ah isla markaasna aan ku wareysan doono bulshada dhalinyarada hadday ahaan lahayd kuwa leh hal abuurka dadka maaragtay hadday noqoto dhaqanka iyo cid kasta oo markaas la iyadu hal abuurina barnaamijka ku xasili doono barnaamijka la kulan bulshada waxaan u malaynayaa halkan waa daawanayseen Cabdirasaaq heesuu soo bandhigay isla markaasna uu ugu talagalay gabar uu jecel yahay bulshadana waxaan ka codsanaya inuu ugu soo duceeyaan inuu Cabdirasaaq uu helo gabadha uu jecel yahay dhinaca kaamirada waa mahadiha ka gaartay Canab Dalmar barnaamijka xigeenka ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo